guddigii heer qaran ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo u magacaabay bedelaadda lacagtii shilinka Soomaaliya ee laga isticmaali jiray magaalada Burco ayaa maanta goob fagaaraha ku gubtay wajigii koowaad ee lacagtaasi oo dhammaan 3 bilyan iyo 500 milyan waxaana goobta lacagtan lagu gubay oo qiyaas ahaan kaga beegan magaalada Burco 12 kiiloomitir dhanka waqooyi bari ka soo qayb galay antidhawraha guud ee qaranka Maxamuud oo Cabdi gudoomiyaha banka dhexe Cabdi Dirir Cabdi agaasimaha guud ee banka dhexe Cabdilaahi Xasan gudoomiyaha gobolka Togdheer xisaabiyaha guud ee qaranka iyo taliyaha ciidamada booliska gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale badan gubitaanka lacagtani kadib ayaa waxa halkaas warbaahinta kala hadlay gudoomiyaha antidhawrka qaranka Maxamuud oo Cabdi isla markaasna gudoomiyaha guddiga uu madaxweynaha Soomaaliland u saaray bedelaadda lacagtii shilinka Soomaaliya ee laga isticmaali jiray Burco waxaanu sheegay gudoomiyuhu in talaabadan lagu gubayo lacagtaasi giimbaarta ahayd ee magaalada Burco ay tahay talaabo loo qaaday dhanka horumarka oo ay ku guuleysatay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Silaayo taas oo ka dhaweynaysa ballanqaadkeedii وشكل صلاة وحلو بهاية وهو قلب تنتهي المطلبات العادة أن تبقى صدني ونفهم بلينا لما يشعر السومالي كارهان مدعوينها مدرد السومالي waxaa sidoo kale gubidda lacagtani ka hadlay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cabdi Dirir Cabdi agaasimaha banka dhexe Cabdilaahi Xasan xisaabiyaha guud ee qaranka Maxamed Cabdi Bade iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi waxaana dhamaantoodba ku dheeraadeen dhibaatada ay lacagtani ku haysay bulshooyinka gobolka Togdheer iyo sida loogu baahan yahay in lacagta cusub loo ilaaliyo iyagoo bulshada iyo ganacsatada ugu baaqay in cid lagu ogaado iyadoo lacagta cusub ku kaydsanaysa meel aan bananka ahayn lagala wareegi doono sharcigana horkeeni doono lacagtan aad iyo aad loo ilaaliyo lacagta siyaan la jarjarin lacagta yaan wax lagu qorin lacagta yaan si xun loo jiidin lacagta khasaaraha laga ilaaliyo wax xoolaheeni weeye lacag fara badan baa gashay yaa meel ay lacagtan lagu khasiray lacagta ma ahayn lacag sahaalo soo baxday waa lacag dhibaato loo soo mutaystay weeye marka dadku waa inay sidaas shicibkuna ay ogaadaan annagu hadda nahay maamulka gobolka Togdheer waxaanu markhaati ka nahay oo goobjoog ka nahay saaka inay fushay hawshii ugu dambeysay gabagabada ahayd waa gubista lacagtii giimbaarta ahayd laga bedelay gobolka Togdheer ay isugu yimaadeen maamulka bangiyada Soomaaliland oo hogaamiye gudoomiyaha banka Soomaaliland iyo dhammaan madaxdii qaranka ee soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in fact waxa weeye waa gabagabadii waxaanu soo wadnay processka ay soo socotay lacagtii la soo qaaday sidii loo bedelayay qaabkii la sameeyay ilaa haddana waxaan ku soo talashiraa waxa weeye waa gubitaankii processka wali wuu socdaa waa qaybtii ugu horeysay hadda aan leenahay gubashada ku socdo hadda gaadiidka wada aragtaan meesha wada taagan waa mar labaad bay noqonayaan sidaas loo soo guri doonaa ilaa la dhamaystiro annagu mas'uuliyiinta haddaan nahayna waxaanu goobjoog u noqonaa ilaa warqadda u dambaysa ay gubato waxaanu jooganaa goobta maanta meesha lagu gubayo ayaga Soomaaliya shilinkiiska giimbaarta way dhamaatay lacagta maanta la idin keenay oo ahayd lacagtii ugu horeysay ay dawladdu soo daabacdo waxa lagu furay Burco in giimbaarta laga bedelo lacagta aan idin keenay uma ogolin in lagu feegaro uma ogolin in la jexjooxo la dhigto lacagtu baan bay leedahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lacagtani maanta la gubay ee shilinka Soomaaliga ahayd oo ka koobneed 100 iyo 50 shilin laga isticmaali jiray muddo ka badan 30 sano taasi oo dhibaato isugu jirta sixir barar iyo burbur dhaqaale ku keentay bulshooyinka gobolka Togdheer waxaana talaabadan ay qaaday xukuumadda cusub ee Soomaaliland la soo doortay ay noqonaysaa mid ka dhaweynaysa ballanqaadyadeedii xilligii ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland Maxamed Caawad Maxamed